Somaliland والسورية ملاحظة تابعتها هو عدد كانت تبينيسا عضيين لما بعض يمر شرطك عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan hambalyeynaya rag iyo dumarba dhalinyarada maanta halkan u fadhida inay qaataan shahaadadaha ay ka qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay jaamacadda waan u hambalyeynayaa furqadaasi lagu siinayaa shahaadadaasina ma aha wax fudud waxay xambaarsan tahay waqtigii aad u hurtay inaad wax barato waxay xambaarsan tahay intaad akhrisatay waxaad xambaarsan tahay intaad lecture dhegaysatay waxay xambaarsan tahay aqoonsiga aad haysato waxay xambaarsan tahay waxa aad maanta kaga duwan tahay kaa shahaadadaasi sidoo macallinkii yidhi labada weedaasi sida afar u tahay ama labada ku dhufan waa afar waxaan leeyahay dalkeena uu koraya koriinkaasi uu korayo wax fara badan baa qabyo ku ah wax fara badan baa inoo qabsoomay wax fara badan loo dhimay waxaa dalkeena ka hirgalay kulliyado jaamacado tiro badan kuwa dawliya iyo kuwa private jaamacadaha tirada badan qaar fara badan baa waxay leeyihiin fakaltiyo kala duwan oo lagu dhigto maadooyin iyo culum kala duwan qaarkoodna wax gaara kuma takhasusaan oo ma sheegaan oo lama yidhaahdo jaamacaddaasi waxay u furantahay arrintaasoo keliya arrimaha xasaasiga ayay ka mid tahay arrinta muhiimadka مصطفى كعبيو بروفيسور كيلو كراعي ولسه عبدوطلع وعرفت عاقمات وسارة عاقمات بدنا روح حكومة أرجوغة مسؤولين وحكروج لأور بخاطر فإلى رحي أما من اللياش إليه وحكروج كوميشن لا يلاحظوا كوميشن كمين اللياشة وعاقمات وحير كعرف الشقية qofkii aadaya qofka loo dirayo ee lagu aaminayana iyaga ayaa qiimeeya inuu u noqon karo qofka dhakhtarkii galayay iyo inuu qalaya kalkaaliyo u noqon karo iyo inuu kalkaaliyaha adeega u noqon karo iyo inuu kakilinka meesha lagu qalaya taagan noqon karo annagu kuwaasaa qiimeeya ma aha wax xukuumadda u yaalla waa arrin professionala oo u taala mihnadayaasha caafimaadka laakiin waxaan dhiirigelinaynaa qof kasta oo wax bartay caafimaad bartay shaqooyinka kale ee kala duwan bartay mihnadaha farsamada badan bartay in la dhiirigeliyo oo ay dhakhtarada iyo cisbitaalada iyo marka ay imtixaan damba ka qaadaan ama practice damba siiyaan waayo waxa uu kasitaa waa ka yaray markay practice damba siiyaan ee ay iyagu u oggolaadaan chance siiyaan inuu meeshii ama fiidkii shaqada marka uu tago in la dhiirigeliyo qofka wax bartay waanu qabnaa inaan la caburinin ee in la dhiirigeliyo baanu qabnaa laakiin shuruucdii ayaa wax badani qabiyey inagu yihiin dalkeennana maalin walba qayb ka mida ayaa suurtagal tahay beri dhow oo sannadaha intay qaadan doontaan garanayniin jaamacadaha tirada badan inay soo ururaan baa laga yaabaa oo ay jaamacad weyno aynu isugu wada tagnay meesha ka dhaarmada suurtagala waqtigay doontada ha qaatay laakiin imanka waynu is arkaynaa oo wixii waxa kala yaro badan awoodeennii shaqasiinta iyo warshadeennii waxbarashada oo sidaa wax u soo tuuraysa dadkiina farabadeen awoodeennii kasbashaduna weli may korin oo weli dad murug iyo cudud yeeshay dal murug iyo cudud yeeshay dhaqaale ahaan mani hadalka yaa badini maanta mar kale waxaan dhiirigelinayaa oo aan idin leeyahay ku haddaa shahaadadii haysaan mustaqbal haliyadtabina meel idinkaa laydii baahan yahay ilmaha idinku u baahanootiine sabirka ku dara sabir
sideetamaadkii galay kana baxay anigaygana aan ku jiro ama qaar fara badan oo dhalinyaraha oo waqtigeeda ka dambeeyey jaamacada ka baxay ayaa weli sabraya oo shaqaynaya shahaadadii waa qaadatay casarkaba inaad mushaar qaadato markiiba ha ku fikiraya yalasu sabir shahaadadu ha kaa qabowdo weliba jirata waxaan ku soo dhoweynayaa markan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne